kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina heesa waxa u dooran dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 150,000 ay ku bixinayso dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee gobolka Mudug. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo beeniyay warar sheegay inuu isbedelay mowqifka kiiska badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Sargaal al-Shabaab ka tirsanaa oo ciidanka dowladda isku soo dhiibay. wasaaradaha dowladda oo qaarkood la faray dardargelinta qorshaha 2019 Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka aan caadiga ahayn ee Midowga Afrika. madaxweynaha Jubbaland oo booqday xero ciidan kana hadlay dagaalka al-Shabaab iyo gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Lafta Gareen oo la kulmay saraakiil ciidan. waxa daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta wararkeedina hees kuwada ugu dar corona. haddii aad ka mid tahay saaxiibadan cusub ee barteen YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo rukumo oo gambaleelka guji share saaxiibada u dheh si wararkii ugu dambeeyay markaan soo galno barteen YouTube-ka ee helaan markana waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal warkii oo faahfaahsan. xukuumadda Soomaaliya ayaa 150,000 oo dollar ku bixinaysa dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhalinyarada kula jimicsaday waqti kula qaatay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaana ka xogeystay caqabadaha haysta iyo baahiyaha gaarka ah ay qabaan dhalinyarada ku nool deegaanka. dhalinyarada ayaa Ra'iisul Wasaaraha u sheegay inay u baahan yihiin in horumarin lagu sameeyo garoonka si dhalinyarada leh hibada iyo hamiga sare ee ciyaaraha ay u helaan fursad wanaagsan korna loogu qaado isdhexgalka bulshada. Ra'iisul Wasaaraha oo dhalinyarada la kulmay ayaa u ballan qaaday qorshaha dowladda ee ka qayb ah qaadashada dhismaha garoonka. Ra'iisul Wasaaraha oo la qaatay kulan dhalinyarada ayaa u sheegay in dowladda qorshe Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay qaar ka tirsan dhalinyarada ayaa u ballan qaaday qorshaha dowladda ee ka qayb qaadanaysa dhismaha garoonka ayaa mar kale ku celiyay in dowladda ay ka qayb qaadanayso dhismaha garoonka kubadda cagta ee loogu magac daray Ra'iisul Wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya Cabdullaahi Ciise oo kamid ahaa dhalinyaradii SYL ee dhaliyay xornimada dalka. dhismaha garoonka ayuu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in dowladdu ay ku bixinayso 150,000 oo dollarka Mareykanka ah si uu noqdo garoon ku habboon dhalinyaradu ku ciyaaraan kubadda cagta. halbeegyada ugu waaweyn ee tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa waxa qayb ka ah wax ka qabashada baahiyaha ay qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo tiradooda ugu badan ay yihiin bulshada Soomaaliyeed. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa beeniyay warar sheegay inuu isbedelay mowqifka kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay warar been abuur ah oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta kaas oo sheegay inuu isbedelay mowqifka dowladda ee ku aadan qadiyadda kiiska horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa warkaas ku tilmaamay mid been abuur ah isagoo oo xusay in xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka uu wado baaritaan ku saabsan ilaha wararkan been abuurka ah baahiyay. sargaal ka tirsan al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee Jubbaland ayaa soo bandhigay sargaal sare oo ka tirsan al-Shabaab oo dhawaan sida ay sheegeen soo dhiibay. taliska qaybta 43aad ayaa sheegay in sargaal uu isku soo dhiibay ciidanka dowladda oo ku sugan aaga Jamaame. sargaalkan oo lagu magacaabo Xuseen Xasan Amberwa ayaa al-Shabaab ka tirsanaa muddo dheer isagoo sheegay in al-Shabaab dhexdooda uu ka jiro khilaaf aad u xooggan. Xuseen Xasan Amberwa oo ka tirsanaa kooxda al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ee ka howlgala nawaaxiga Jamaame ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidanka xoogga dalka. maalmihii u dambeeyay Jubbaland ayaa soo bandhigaysay xubno ay sheegtay inay ka tirsanaayeen al-Shabaab. wasaaradaha dowladda qaarkood ayaa la faray dardargelinta qorshaha 2019. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shir gudoomiyay guddi hoosaadka golaha wasiirada ee tubta horumarinta dhaqaalaha. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa dhammaan wasaaradaha ku jira tubta faray inay dardargeliyaan fulinta qorshayaasha u degsanaa inay sanadkan ku qabtaan ay la siixdeen Ra'iisul Wasaaraha bilowgii sanadka 2019. shirka oo ay ka qayb galeen dhammaan wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha dalka waxaana warbixino looga dhageystay wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga. wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay heerka uu soo gaaray qorshaha deenka looga cafinayo dalka ee la yiraahdo SMB4 ama SMB4 warbixin la xiriirtay iskaashiga ganacsiga Shiinaha iyo Soomaaliya iyo sidoo kale waxaa laga dhageystay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
intii uu shirka socday ayaa sidoo kale warbixino looga dhageystay guddi loo xilsaaray heshiiska cusub ee dowladdu la gashay shirkadda Albeeg ee maamusha dekedda Muqdisho iyadoo ugu dambeyn lagu soo bandhigay warbixin guud oo looga hadlay tubta horumarinta dhaqaalaha iyo sida ay u socdaan halbeegyada guud ee sanadkan qorshuhu ahaa in tubta ay fuliso. Tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa qayb ka ah afarta tub qaran ee lagu saleeyay shaqooyinka qaranka si looga maradhaliyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir aan caadi ahayn ee Midowga Afrika. Shirkii ururka Midowga Afrika aan caadiga ahayn ee ku saabsanaa sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska ganacsiga xorta ah ee qaaradda ee la saxiixay sanadkii 2018 ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Niamey ee Niger. Shirkan oo wasiirka dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Cabduqaadir Axmed Cabdi ku matalay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa kale oo looga hadlay arrimo badan oo wajahaysa qaaradda iyo sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada siyaasadda, diblomaasiyadda, ka hortagga tahriibka, colaadaha ka socda meelo ka mid ah qaaradda iyo sidii loo horumarin lahaa ajandaha 2063. wasiirka oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa cadeeyay kaalinta ay Soomaaliya ka qaadanayso horumarka Afrika iyo sidii ay qayb uga noqon lahayd ganacsiga xorta ah in la helo habka loogu tartamo dunida. wasiir Cabduqaadir ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka aasaasay ururka Midowga Afrika, muhiimadna ay u leedahay in la helo ganacsi xor ah oo ah mid fursado maalgashi u furaya ganacsatada Soomaaliyeed oo ku baahsan daafaha qaaradda Afrika. wasiirka ayaa ka warbixiyay horumarka Soomaaliya ay gaartay sanadihii u dambeeyay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, nabadgelyada iyo in madax-bannaanida iyo midnimada Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah, isaga oo ku booyay madaxda qaaradda in Soomaaliya ay ka filayso inay ixtiraamaan madax-bannaanideeda. madaxweynaha Jubbaland ayaa booqday xero ciidan waxaana ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxa uu booqday deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland. madaxweynaha oo ay weheliyeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo xubno kale ayaa halkaas khudbad uga jeediyay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland isagoo ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan xoreynta dalka iyo sidii nabadgelyada ay u asii adkeyn lahaayeen. madaxweynaha ayaa sheegay in ammaanka ka jira magaalooyinka waaweyn ay saldhig u yihiin ciidamada ku sugan deegaanada fogfog, waxaana intaas ku daray in dhammaan shacabka reer Jubbaland ay ku jiifaan oo ay yihiin hay'ad naftooda u horay deganaanshaha iyo dowladnimada Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland ayaa bilihii la soo dhaafay waxa uu waday dowlad-tus siyaasadeed xilli dhawaan la filayo in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jubbaland. ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Laftagareen ayaa la kulmay saraakiil ciidan. gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed, kuwaas oo isugu jira ciidan hadda tababar dhameystay oo u baahan in la qalabeeyo. kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirka dowladda wasaaradda gaashaandhigga, amniga, maareynta iyo masiibooyinka, wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wasiirka ku-xigeenka amniga Koonfur Galbeed ayaa warbixin ku aadan ciidanka ka siiyay madaxda dowladda dhexe iyo Koonfur Galbeed. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Amar Dambe oo qayb ka ah wafdiga ku sugnaa degmada Xudur ayaa dhankiisa sheegay in ka dowlad ahaan ay ka jawaabi doonaan baahiyaha haysta ciidanka ku sugan gobolka Boqol loona dhameystiri doono qalabkooda. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhankiisa kula dardaarmay ciidanka inay ku dadaalaan sidii degmooyinka gobolka Boqol ay uga xoreyn lahaayeen Al-Shabaab, kuwaas oo dhibaato ba'an ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. dowladdiisana muhiimad gooni ah ay siinayso sidii guud ahaan Koonfur Galbeed looga saari lahaa ururka Al-Shabaab sida dalku dhigay. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ammaanay madaxweynaha Koonfur Galbeed sida ay uga go'an tahay inuu wax ka qabto guud ahaan Koonfur Galbeed, waxaana uu ciidanka kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa gobolka Boqol, waxaana tilmaamay in ka dowlad ahaan ay taageeri doonaan sidii loogu guuleysan lahaa ururkaas sida dalku dhigay. warkii oo daawadayaal idinkaga imaanay warbaahinta Isha Wararka wanaaganta.